kulan wacan daawadayaal halkan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah uga codsaday hoggaanka baarlamaanka in dib loo dhigo furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka oo markii hore lagu waday in uu furmo maanta oo Sabti ah sida hore u shaaciyeen guddoonka baarlamaanka fariin loo diray xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ayaa lagu sheegay in furitaanka kala fadhiga loo qorsheeyay in dib loo dhigay ilaa 29 September taas oo ku beegan bartamaha toddobaadka soo socda sida ku cad qodobka 9aad ee dastuurka ku-meel gaarka ee dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa leh mas'uuliyadda furitaanka kala fadhiga baarlamaanka waxaana lagu wadaa in uu jeediyo khudbad ku saabsan waxqabadka dowladda intii lagu guda jiray fasaxa baarlamaanka dib u dhaca kala fadhigan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Muqdisho ay ka socdaan hadal heen ballaaran oo la xiriira dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kuwaas oo la rumaysan yahay inay wadaan mooshin ka dhan ah xukuumadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre tani waxay muujinaysaa in dowladda hadda jirta ay wajahayso caqabado siyaasadeed oo soo food saaray iyadoo kala fadhiga soo socda uu noqon doona mid xasaasi ah oo la filayo dood adag iyo miisaanid siyaasadeed oo heer sare ah go'aanka lagu dhigay furitaanka kala fadhiga baarlamaanka ayaa u muuqda mid la xiriira duruufaha siyaasadeed ee haatan ka taagan iyo baahida loo qabo wadatashi dheeri ah oo u dhaxeeya madaxda dowladda iyo xubnaha baarlamaanka dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku midaysan madasha samata bixinta Soomaaliyeed ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen eedeyn culus ugu jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoonka golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe qoraalka ay soo saareen xildhibaanada golaha samata bixinta ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku takrifalay awoodda iyo jebinta shuruucda dalka u yaala waxay sidoo kale xildhibaanadu tilmaameen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiye Aadan Madoobe in ay isku kaashadeen wiiqista madax banaanida baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddaba xildhibaanada ku midaysan golaha samata bixinta Soomaaliyeed waxay bulshada Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo beesha caalamka la wadaagayeen in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xiran yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiye Aadan Madoobe ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xildhibaanada ku midaysan golaha samata bixinta war-saxaafadeedka xildhibaanada ayaa lagu xusay in kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka uu ku soo dhamaaday waxqabad la'aan isla markaana kala fadhiga toddobaad uu haatan weli u xiran yahay bila sabab muddo bil ah sida markaasi ay qoraalkooda ku sheegeen xildhibaanada waxayna tilmaameen in arintan ay mar ka dambayso ay dib u dhig ku sameynayso iyo dib u dhac siyaasadeedba guud ahaan halka uu markaasi dalka tiigsanayo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay liis cusub oo wadamada laga mamnuucay muwaadiniintooda la siiyo fiisooyinka gelitaanka Imaaraadka laga bilaabo sanadka 2026 go'aankan lagu faafiyay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta waxa lagu sheegay in liiskan lagu daray Soomaaliya sidoo kale wadamada kale ee go'aankan saameeyay waxa kamid ah Afghanistan, Liibiya, Yemen, Lebanon, Bangladesh, Cameroon, Sudan, Uganda inkastoo dowladda Imaaraadka aysan si rasmi ah u cadeynin sababaha ka dambeeya go'aanka haddana warbixino soo baxaya tilmaamaya in go'aankan uu la xiriiro walaac dhanka ammaanka ah iyo xaaladaha deganaansho darro ee ka taagan qaar ka mid ah wadamada la mamnuucay go'aanka lagu daray Soomaaliya ayaa si gaar ah u taagan maadaama uu jiro xiriir ballaaran oo laba geesood oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi kaas oo ku saleysan iskaashi dhinacyada ganacsiga ammaanka iyo siyaasadda lama oga ilaa hadda sida go'aanka cusub uu saameyn doono xiriirkaasi balse khubaro siyaasadeed ayaa sheegaya in uu noqon karo caqabad ku timaada isdhexgalka labada dal gaar ahaan dhinacyada socdaalka ganacsiga iyo maalgashiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin arintan si kastaba ha ahaatee waxa la filayaa in Muqdisho ay mowqif cad ka soo saarto maalmaha soo socda maadaama xayiraadan fiiso ay yeelan karto saameyn ballaaran oo ku saabsan socdaalka dadka Soomaaliyeed ee ugu socdaala shaqo caafimaad ama mid ganacsi wadankaasi Imaaraadka Carabta ugu dambeyntii Soomaaliya ayaa ku eedeysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu ku guuldareystay dhaqangelinta qaraar loogu talagalay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee dadka Gaza sida uu sheegay wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Baale xaaladda Gaza ayaa ah mid sii xumaanaysa sidoo kale
dagaalka Israel si xowli ayuu u sii fidaya taas oo sababaysa gaajo, musiibo bini'aadanimo iyo dhibaato joogto ah oo saameeysa rayidka gaar ahaan haweenka iyo carruurta. wakiilka Soomaaliya UN-ka ayaa tilmaamay in uu dhaqan gali waayay qaraar ku baaqaya joojinta dagaalka, sii deynta dhammaan maxaabiista, fududeynta gaarsiinta gargaar bini'aadanimo iyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah. wakiilka Soomaaliya ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaalada Qatar, Masar iyo Mareykanka ee nabad ilaalinta, isagoo rajeynaya in si sharci ku saabsan xalka labada dowladood oo dhinacaasi golaha guud ee qaramada midoobay oo usbuuca soo socda uu horseedi doono nabad waarta maadaama dadka rayidka halkaasi ay la kulmayaan dhibaatooyin badan. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa wararka waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabad iyo warsan.